tan ama mano ensure that other road users can see you oo macnaheeda ah hubi in dadka wadada isticmaala ay ku arki karaan oo maxaa looga jeedaa in dadka hubi in dadka wadada isticmaala ay ku arki karaan maxaa laga wadaa macnaheeda waxa waaye gaarigaaga marka awoodid waa inay ku arkaan maxaa laga wadaa marka aad leexanayso tusi bahalkii faraajada ama ishaarada meesha u soconayso marka waa inay arkaan dadka wadada isticmaalo ishaaradaada indicatadaada waa inay arkaan brake light kaaga yani brake markaad qabanayso oo kale ayaa u taagan yahay cashirkan marka dadka ka horeey waa inay ku arki karaan wadada inaad ka bixin oo leenkaaga aad ku socoto taas ayaa laga hadlayaa taas okay tan oo imaano watch other road users all day and in particular for cyclists motorcyclists and pedestrians tan waxa uu leeyahay u fiirso dadka kale ee isticmaalo wadada gaar ahaan kuwa baaskiilka wado mootooyinka iyo dadka lugeynayo intaas laga hadlayaa marka waa inaad iska eegtaa dadka wadada isticmaalayo kuwa baaskiilka wado kuwa mootooyinka ceerinayo iyo kuwa dadka lugeynayo intaas oo dhan iska fiirsan rabaa ma ahan kaliya hadda ayaga inta bis soo qaateen waliba xayawaanka kamid ah oo ku jira meesha xayawaanka meena ku soo dareen animals waa laga wada ayagana way ku jiraan oo sababtoo ah dadka kaliya ama ahayn iska fiirayso meesha waxa kula isticmaalo ugu dadka kaliya kula isticmaalaan wadada waxa kula isticmaalo dad xayawaan gaari mooto baaskiil gaariyool wax walba kula isticmaalo intaas oo wax oo dhan inaad waxa la rabaa iska eegtaa la rabaa ee ma aha inaad gaariga iska fiijiso ama iska ceeriso ama iska wado okay aan ka socono tan oo imaano tan waxa way give special attention to the vulnerable road users example of children elderly people and the persons with disability oo macnaheeda ah marka aad marayso maxaa laga yaabaa u fiirso marka aad gaariga wado waa inaad ahmiyad gaar ah siisaa dadka wadada isticmaalo khaasatan caruurta yani iskuuleyda ama ciyaal ha noqdaan dadka waayeelada ah waaweyn dadka aana lixaad ilaahay u dhameystirin sida curyaamada amoolayaasha waxaasoo dhan tusaale ahaan laga soo qaatay inaad iska fiiriso ma aha inaad gaariga iska ahmiyad gaar inaad siisaa raba ayaga ahmiyad gaar waa inaad siisaa ayaga oo marka aad gaariga wadayso aad u fiiriso maxay yeelay ciyaalka waad aragteen iskuulka markii laga soo fasaxo ama laga sii daayo markii laga sii daayo ayaga waa special attention inaad siiso way marka maxay yeelay iskuulka markii laga sii daayo ayaga way iska soo socdaan wadada marbar way istaagaan ma eegaan dhinacyada mar waxa laga yaabaa ayagoo hal dhinac fiirinayo dhinaca kale aan eegin adna dhinac kale oo soo baxdo marka waxa loo baahan yahay adiga inaad fiiro gaarayso dadka duqooshinka waxa laga wadaa waayeelada wadada markii ay ku logeynayaan socodkooda aad buu u gaaban yahay yani socodkooda wuu yar yahay waxay ku socdaan si tartiib ah marka waxa laga yaabaa adiga oo wadadii socday inaad isla kulantaan oo ku dhacdo gaariga sida dadka amoolayaasha sida qof dhawool ah qof lug la qof indhala dadkaas laga hadlayaa soo dadkaas oo dhan lixda u dhameystiran ayagana fiilo gaar u yeesha oo iska ilaaliya markay wadada goynayaan waxa laga yaabaa qof inuu dhawool waxba maqlin hoonka aad u yeeriso qofkii aad ku dhacdo teetana soo halis baa galaysaa okay inta ma maano meesha waxa uu when passing parked cars watch out for opening doors and exiting passengers oo macnaheeda ah markaad marayso baabuurta taagan ama parkingka ku jirto ka fiirso furitaanka albaabada iyo ka bixitaankooda ma fahantay marka oo maxaa loola jeedaa waxaas marka ay dadka ma aragtay aad maraysaan meel waxaa jira gaariga markaad maraysaan oo baakimo ay ku baakimaysan yihiin baabuur waxaa jirta meel ku baakimaysan yahay marayno baabuurta markay baakimaysan yihiin waxaa laga yaabaa ninkan dalawarka ah ee dadka waday inayna dadkan u fiirsanin wadada waxaa laga yaabaa albaabka inay kugu furaan adigoo ag mariyay waa inaad iska fiirisaa يعني markaad marayso waa inaad gaariga si tartiib aad u martaa waxa laga yaabaa qofkaas albaabka inuu ka baxay ama soo galiyay marka waa inaad iska fiirisaan marka aad ag marayso meelahaas oo kale aad iskaga ilaali ama iskaga eeg tan waxa way give special attention to how the users of non motorist transportations example horses donkey cats handicaps bicycle and wheelchairs tan waxa uu dhahay fiiro gaar ah si dadka isticmaala gaadiidka aan motorka lahayn sida fardaha
gaari dameerka, gaari gacmeedka iyo baaskiilka iyo kuraasta curyaamada. yacni curyaamada waxaa waye gaariga curyaamada laga hadlayaa, kan gaariga curyaamada ay ku fadhiyaan. intaas dhan iskale waxaa loo leeyahay waa inaad taxadar muujisaa dadka aan isticmaalin gaariyaasha aan ku shaqeynin enjinka. waxa enjin ku shaqeyn waa garanaysaan, aan matoorin lahayn. faras hadma enjin ma ku shaqeeya, faras kuma shaqeeyo. dameerka ma ku shaqeeya, faras kuma shaqeeyo enjin, aan ka wadaa matoor. gaari gacanka kuma shaqeeyo matoor, baaskiilka matoor kuma shaqeeyo. gaari gacanka baalkii gaariga curyaamada kuma shaqeeyo isagana matoorin. marka waxaa la rabaa inaad fiiro gaar aad siisaan ama ahamiyad gaala inaad siisaan la rabaa. okay, waxaa u imaanana meeshan eyesight and vision. meeshan waxaa ku qoran caafimaadka badbaadada. caafimaadka badbaadada maxaa laga wadaa? meesha maxaa ku qoran marka check your eyes if you need spectacles to meet the required eyesight standard. Ensure that you wear them before starting any journey. oo macnaheeda ah caafimaadka waxaa loola jeedaa ladnaanta jirkaaga maskaxiyan. ma fahamtid? marka aad gaariga wado haddii aad u baahan tahay muraayado, yani waxaa laga wadaa muraayadaha indhaha la gashtaa laga hadlayaa. haddaad u baahan tahay la kulan dhakhtarka indhaha, dhakhtarka indhaha oo hubi inaad xidhato ka hor inta aadan bilaabin safarkaaga. marka waxaa loo baahan yahay qof dad waxaa jira aanan waxba arkaynin, indhaha waxba ka arkaynin ayaa laga hadlayaa. marka waa indhaha laga hadlaya, eyes-ka indhaha ayaa laga hadlayaa. marka indhahaaga haddeenan aada si fiican waxba arkaynin waa inaad la kulantaa dhakhtarka indhaha si uu kuu caawiyo oo indhaha kugu qoro okyaalihii indhaha la gashanayay. dee saasaa loo baahan yahay. tan waxaa la dhahay ayadana it is dangerous and risky to ride with incorrect dejective vision. oo tan macnaheeda ah ha xiran muraayadaha qoraxda ama muraayadaha koofiyadda madow ee aragtida liidato. suma aragtid waa khatar. meeshan meeshan ka hadlaynay marka dadka maxaa jira khatar bay ku tahay ama markay kaxeynayaan gaariga inay si khaldan ay u xidhaan maxaa la dhihi jiray muraayado. marka waxaa loo baahan yahay dad waxaa jira iska xidha ookiyaalaha iska xiranina markii aad garimo. meesha maxaa ku qoran ayadana kale waa fake risk, khatar weeye si khaldan inaad u isticmaasho indha xirashada ama baalkii caafimaad daro weeyaan. ada iska wada gaariga khatar bay kugu sugan tahay. kan waxaa waye do not wear sunglasses or tinted helmet vista or at any or condition of poor visibility. oo macnaheeda ah dadka xiraya muraayadaha qoraxda waa garanaysaa. muraayadaha qoraxda ama koofiyad madow iyo habeenkii aragtida oo liidato, waxyaalahaas dhan iska hubi. marka aad gaariga wadayso looma baahno inaad iska xirato waxyaalahaas. soo qaybtan waxaa laga hadlayay tixraaca gaariga markii la wadayo lagaaga baahan yahay inaad isticmaasho. marka looga baahan yahay inaad gaariga wadaysaan haddaad u baahan tahay ookiyaalaha indhaha waa inaad xirataa. weliga allahana hala idii sheegaya ookiyaalahaad xidhanin waxaa yeelay khatar ayay ku tahay noloshaada. haddaad iska xirato khatar bay u imaanan kartaa noloshaada, sababtoo ah ookiyaalo dhakhtar aanan kuu qorin haddaad iska xirato dhibkeeda leedahay. soo marka intaad ookiyaalaha xidhanin adoo gaariga wadayso, ookiyaalayaal waxaa jira loogu talagalay baabuurta markii la wadayo oo kale dhakhtarka kuu qorayo. ookiyaalaha waxaa jira qoraxda loogu talagalay, ookiyaalo waxaa jira loogu talagalay mugdiga iyo wixii la mid ah. soo ha iska xiranin waxyaalahaas ama koofiyad ha iska xiranin. ayadana sidoo kale maskixiyan caafimaadka u daran tahay. koofiyad helmet waxaa baal la xidho waay oo madaxa la gashto, ayada madaxa wajiga dhan lagu qariyaa jirtaa. soo waxaas dhan looma baahno inaad samaysaan. markaad harabto inaad waxaa samaysana waa inaad u baahan tahay dhakhtar inaad la xiriirto. dhakhtarka indhaha u tag una sheeg problemka inaad qabto, ice problem inaad qabto, indhaha inaad qabtaa la rabaa. soo meeshan waxaan kusoo baranay u fiirsashada ama sharciyada gaariga. hadduu ilaaha yaraado halkaas ku joojinaynaa. soo cashirka kale ee ku xogo aad ha loola socdo.